عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتنا قالقاها كوحنا برتين فيسبوك عبد الله فلوق waxaan maanta idin haynaa barnaamijka gabadha Soomaaliyeed ee si weyn uga hadalhaynta badan baalmahan baraha bulshada ee si weyn looga hadlayo gabadha Soomaaliyeed maxay tahay hadalhaynta badan ee ay dadka Soomaalida si weyn baraha bulshada uga hadlayaan waa barnaamijkan ayaan ku qaada dhigi doonaa laakiin marka hore waxaan ka codsanaa dad muuqaalka gudaha video-ga like saarto una share gareysa saaxiibadana kale ee Facebook ma sanid saaxiib barteennii hore ee Facebook waa noqotay cilad ayaa ku timid sidoo kalena waxaan ka codsanaynaa inaad barteenna cusub ee Facebook Abdalla Faloog sawirka follow dhahdo sidoo kalena saaxiibada kale la wadaagto oo share gareyso muuqaaladana si ay u gaadhaan saaxiibo badan iyo daawadayaal badan oo u wanaagsan si adigoo kale u wanaagsan tahay mahadsanid saaxiib maxay tahay gabadha Soomaaliyeed ee si weyn uga caanka ah baraha aaladaha la isticmaalo sida TikTok, Twitter iyo Facebook iyo sidoo kale YouTube gabadhan oo si weyn ugu dhaliili jirtay siyaasadaha Soomaalida amba sida ay u dhaqmaan dadka Soomaalida sidoo kalena ahayd gabadh necab qabiilka iyo waxyaalaha qabyaalada ay aad ka dadka Soomaalida ugu dhex jiraan amba waxay ku ciyaaraan waqtiyada qaar ee TikTok-ka gabadhan oo Twitter-keeda kaga hadashay marar badan inay jiraan in lagu hayo dumarka Soomaaliyeed waxyaalo ka baxsan sharciyada ay ogol yihiin caalamiga amba dadka ay maaragtay ay xadiyada ay wada dhigtaan dadkaas amba qaramada midoobay iyo wadamada qaarkood hay ka baxsan tahay ay wurista dumarka Soomaalida loo yeesay ay in badan ka hadashay ahayna gabadh u dooda xuquuqda dumarka Soomaalida ayaa loo waayay amba maalmaha la soo dhaafay laga arkay meedkeeda guri ku yaala degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho gabadhan ayaa si weyn baraha bulshada u qabsatay maalmihii la soo dhaafay sida aan wada aragnay amba baraha bulshada aan ka aragnay saaxiib haddaba gabadhan sidee ayay ku timi Soomaaliya sidee bay si xaqiiqo ay markii hore ka timi gabadhan waxay ka timi mid kamid ah wadamada reer Yurub sida ay sheegtay tali ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Nuur Wasakiya oo barta Twitter-ka ka codsatay dadka Soomaaliyeed qofkii ka ay xog dheeriya in ay ku soo gudbiyaan ay tiri ciidamada booliska gaar ahaan laanta dambi baarista si loo ogaado ay tiri sababta ay u dhimatay gabadhan qaaliga ahayd ee walaashanayd gabadhan waxa ka soo laabatay xaniindiga dhacay mid qurbaha wadanka mid ah dalka reer Yurub halkaasi oo ay waxbarashadeedii ku soo qaadatay waqtigeedina ay ku soo qaadatay soo kalena ay deganayeen mid kamid ah familigeeda hooyadeed aan dhahdee iyo aabaheed mid kamid ah halkaas oo ay la soo nooleed halka mid kalena oo deganaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ugu dambeyntii gabadhan waxay u soo laabatay dalkeeda hooyo ee Soomaaliya sida ay dad badan sheegeen ma ahan inay dhaqan cilin loogu soo celiyay ee waxay ahayd qof iyadu dhaqan wanaagsan sidoo kalena baraha bulshada caanka ahayd una doodo jirtay xuquuqda dumarka amba dadka hanan codkoodu meesha dheer gaari karin ugu dambeyntii gabadhan waxay imatay magaalada Muqdisho iyadoo halkaasi ka waday hawlo samafalnimo iyo sidoo kale rabtayna inay dalkeeda iyo dadkeeda Soomaaliyeed u adeegto oo ay ugu adeegto waxbarashada iyo heerka ay ka soo aragtay wadamada ay ku soo nooleed ee reer galbeedka si kastaba ahaatee waxay sheegtay Nuur Wasakiya inay gabadhan la arkay iyadoo oo ku dhimantay guri kamid ah guryaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Yaaqshiid iyadoo oo la deganid ay tiri mid kamid ah familideeda kaasi oo aan dhakhtarkana ugu yeerin ay tiri markii ay dhimanaysay lana ogeysiin in cid kale balse waxa aad looga shakaysan yahay gabadhan in la sumeeyay amba si hoose loo dilay oo naqaska lagu dhajiyay taasi oo waliba cid ugu dhow oo looga shakaysan yahay tahay dadka familiga taliyaha ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Nuur Wasakiya waxay sheegtay in la baari doono kiiskan kadibna la wadaagi doono dadka shacabka Soomaaliyeed cid kasta oo baaris iyo warka haysana waxaan la codsanaynaa bas inay ku soo hagaajiyaan laanta dambi baarista ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan leenahay si fiican kiiskan loo eego ahna loo baaro hadii ay gabadhan sababta gacan ka gardarana hal la horkeeno ayaan leenahay cadaaladda saaxiib muuqaalkan waxaan ka codsanaynaa inaad video-ga like saarto una share gareyso saaxiibada kale ee Facebook iyo YouTube